xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud Jirde oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha gurtida Somaliland ayaa sheegay in muddo 34 sano oo Somaliland jirtay wasaaradda caafimaadku aanay lahayn xeer rasmi ah oo lagu maamulo wuxuu sheegay in arrintan uu ka maqlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka kaasoo sheegay in wasaaraddu ay ku shaqeynaysay iyada oo aan lahayn sharci si cad u nidaaminaya hawlaha caafimaadka dalka sidoo kale xildhibaanku wuxuu tilmaamay in miisaaniyadda ay wasaaraddu ku shaqeynayso ay aad u yar tahay isla markaana aanay ku filayn hawlaha ballaaran ee ay wasaaraddu qaranka u hayso waxa uu sidan ka sheegay warbixin uu golaha u soo jeediyay taas oo koobsanaysay kormeer ay guddidu ku samaysay wasaaradaha kala duwan ee biyaha tamarta caafimaadka iyo waxbarashada haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada halkan waxaan ku haynaa dhowr warbixinood waxaan u horreysiinayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta waxa aanu la kulannay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta wuxuuna noo sheegay inay wasaaraddu u qaybsan tahay 3 qaybood tamarta badroolka macdanta tamartu waxay u sii qaybsantaa 3 qaybood iyaduna dhalinta dabka oo waxa cid kasta ayaa maalgashi karta gudbinta dabka waxa iska leh buu yiri dawladda qaybintana waxa iska leh shirkadaha private-ka ah badroolku waxa weeyaan soo saaris iyo kaydinta haamaha iyo qaybinta soo saarista waxa ku shaqale dawladda kaydinta haamahana ganacsatada iyo dawladda ayaa gacanta ku haysa qaybintana waxa iska leh shirkadaha baarista dalka waxa baaray dalka xagga badroolka 2 shirkadood wax natiijo ana hordhac mooyaane laakiin natiijo rasmiya oo laga hayaayna ma jirto sahamintuna waxay u baahan tahay ka dawlad ahaan buu yiri haddaan anagu qaadano de kharash badan qalab badan wax badan bay u tahay wixiaasina ma awoodna buu yiri tamarta haddaan u soo noqdo tamartu waa dab dhalinta kolla waxa laga dhaliyaa dabka kolla mashiina laga dhaliyaa tamarta dalka barayskeedu waxa ugu qaalisan Hargeysa oo ah 0.73 1 unit waa intaas halka degmooyinka kale ee berbera 0.20 tahay boorama 0.59 burco 0.5 weeyaan wadanka waxa ugu qaalisan waa Hargeysa oo halkii unit ay tahay 0.73 waliba sidaasi shirkadaha Hargeysa ee hayaay dabka waxay haystaan mashiinadii wadanka ee dalku lahaa waxay haystaan xarkihii waxay haystaan maalgelintii banka haddana maanta wadanka waa halka ugu qaalisan waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada Somaliland ee Hargeysa degan waxay maanta la tacaalaysaa waa korontadaas maadaama ay haystaan mashiinadii wadanka ee wakaaladii xoogga korontada la oran jiray maalgelin haystaan walibana ay yihiin shirkadihii ugu lacagta badnaa waxaanu soo jeedinaynaa qiimaha in laga dhimo adduunka meesha ugu qaalisan Afrika waa Somaliland maanta bulshada Somalilandna ma qaadi karto ee waxaanu mudane gudoomiye ku tala bixinaynaa 0.73 ummadu ma qaadi karto ee dib ha loo eego inta waxaan kaga baxayaa wasaaradda waxbarashada waxaanu la kulannay wasiiru dawlaha iyo agaasimaha guud waxay noo sheegeen muddada ay joogaan inay yar tahay waxay noo sheegeen inay wadaan daraasaad badan oo xagga private-ka ah iyo xagga public-ka ah iyo diyaarinta manhajka oo aanu isku eegayna bay yiraahdeen min 1 ilaa 8 iyo dugsiyada sare waxay noo sheegeen waxaanu imka gacanta ku haynaa barnaamijkaas oo si fiican u socda oo waliba meelo badan taabanaya oo dadka laga tirada badan yahay sida aybeelka dadka indhahala
dadka dhagahala dadka curyaaminta ah iskuulo badan baanu ku tala jirnaa bay yiraahdeen waliba xoogana waxaan saaraynaa bay yiraahdeen dugsiyada farsamada gacanta ah qorshaheedina waa wadnaa bay yiraahdeen iyadoo dhammaystiranna golayaasha ayaanu hor keeni doonaa waxay tala bixin aanu u soo jeedinaynaa maadaama ay tahay maxay ahaday wasaaradii waxbarashada waxa ay ka cadeen miisaaniyadda dalka oo ku yar waxaanu ku soo jeedinaynaa ama ka gol ahaan in miisaaniyadda waddanka maadaama ay yihiin waxbarashadii dalka oo halkii warshadii wax soo saaraysay tahay in iyadna hoos loo eego intaana waxaan kaga baxayaa wasaaradii waxbarashada waxaan u galayaa wasaaradda horumarinta biyaha wasaaradda horumarinta biyaha waxaan waraysi ka soo aanu la yeelanay wasiirka iyo agaasimayaasha guud iyo waaxyaha kale waxa uu noo sheegay markii aanu xilka la wareegnay waxaanu samaynay sahamin ceelasha dalka ah waxa xumaa buu yiri 36 ceel oo boor hool ah ceelasha dhaadheer 22 kamida waanu dhammaystiray buu yiri 22 goobood oo kale shaqadii iyo dayactirkii ayaa ka socota waxaanu samaynay biyo ballaadhis dalka oo dhan ah waxaanu samaynay buu yiri ceelal gacmeed waxaanu samaynay barkado iyo wixii la mid ah liiska ceelasha dhaadheer ee la qoday inta aanu joogno 2025 waa 18 ceel buu yiri goobaha biyo ballaadhinta loo sameeyay waa 8 magaalo liiska balliyada fulay ee sanadka waa 11 goobood liiska ceelasha dayactirka loo sameeyayna waa 22 goobood waxaanu ku tala jirnaa buu yiri inaan dalka keenno 6 riig oo gobol walba uu joogo riig maadaama gobol walba uu isku kafeeyo tala bixin waxaanu ku tala bixinaynaa in dhaqaalaha ama miisaaniyadda wasaaradda kor loo qaado maadaama ay biyuhu yihiin noloshii dalka waxaanu ku tala bixinaynaa in miisaaniyadda xagga arrimaha bulshada kor loogu qaado halkaana waxaan kaga gudbayaa wasaaraddii biyaha waxaan u galayaa wadooyinka waxaanu la kulannay maareeyaha wadooyinka wadooyinku waxay u qaybsamaan hay'adda la yiraahdo road authority-gu 3 waaxood waaxda tiknikada waaxda controlka iyo waaxda fulinta waxaanu tagnay bridge-kii dhawaan dhacay ee dumay ee la sameeyay baanu tagnay waraysi baanu ka qaadnay ama weydiinay hay'addu waxay noo sheegtay ama maareeyuhu in hortood la dhisay bridge-kaasina ku dumay kuwa kale ee la midka ana ay isku mid yihiin waxaana dhisay shirkad kaliya ayaa wada dhistay iyadaana surveyga samaysay iyadaana dhistay waana shirkad private ah haddaan maanta la gaadhin kuwa kalena waxay noo sheegeen inay la mid yihiin ay dumayaan haddaan la gaadhin wuxuu noo sheegay shaqaalaha hay'addu inay yihiin 600 oo shaqaalo 120 nin inay injineer yihiin wadooyinka dalka 30% ayaa furan waxa kaloo qorshaynay buu yiri in wadadii baki ay dhammaystir ku dhowdahay waxa kaloo qorshaysan buu yiri qorolugud iyo waadaamago oo la dhammaystiro iyo wadooyinka kale dalka waxaanu ku tala bixinaynaa gudi ahaan maadaama biriishadu yihiin biriishada la sheegay ee kuwii kalena ay la midka yihiin dhiibkooga hoose wuxuu qodan yahay 2.5 marka waxay wasaaraddu tiri ama hay'adaasi tiri haddaan degdeg loo gaarin dhibaato kale oo khasaare ah ayaa dhici karta marka tala ahaan anagu waxaan ugu soo jeedin lahaa maadaama intaan khasaare dhicin in laga hortago ciddii doonta kiiska ha lahaato ama hay'adii dhistay ama meesha ay soo martay anu taa daba gali mayno laakiin waxaan ka digaynaa khasaaraha dambe maadaama biriishadu isku mid yihiin mudane gudoomiye ama shir gudoon ama gole hay'adaasi waxay noo sheegtay inay inta kalena la mid yihiin oo berri hadday daadad yimaadaan iyaguna ay dumayaan wassalaamu calaykum waxaan haddana u gudbayaa wasaaradda caafimaadka
wasaaradda caafimaadka waxaanu la kulannay agaasimaha guud ee wasaaradda wuxuuna siiyey warbixin waa 21 isbitaal oo dalka ah oo 6 gobol ah MCAjadu waa 375 dhakhaatiirta ka hawlgasha waa 411 dhakhtar 2633 waa nurse midwaygu waxa weeyaan 1093 950 waa caawiyayaal oo ah dirawaliin nadiifiso ilaaliso guud ahaan shaqaalaha wasaaraddu waa 7169 shaqaale ah 3867 waa bermad oo waxa weeyaan kuwa mushaara qaata 3302 waa nan mushaara ma qaataan waxa aanu soo kormeynay buuri farmasiyada dalku waa 800 ama magaalada Hargeysa 864 farmasiyo ayaa ka furan 104 kaliyaata ayaa haysta wax sharciyaba 104 kaliyaata farmasiyada wadanka ka furan wuxuu agaasimaha guud noo sheegay 864 yaa furan buuri markii aanu marnay ee aanu eegnay ee jeegaraynay wax sharci haysta oo sharcigii farmasiinimada u haystay waa 104 700 inta kale waxay sharci haystaan ma jirto waayahay shaqaalaha wasaaraddu u baahan tahay dhaqaalaha wasaaraddu u baahan tahay waa 26210 baa loo baahan yahay waxaanu helnaa buuri 11148 waa hadda dhaqaalaha aanu sanadkii u baahannahay buuri 26 baan u baahannahay buuri 11 waan helnaa 15062 ya ah gaab aan bannaan oo ah meel bannaan miisaaniyadda dalka waxaanu ka nahay buuri 5% baahiyaha loo baahan yahay miisaaniyadda dalka naguma filna buuri hay'adihiin waxna siin jirayna way baneeyeen hadday tahay MCAjadii iyo wixiina way baneeyeen buuri halka waxa nagaga soo furmay buuri gaab badan waxa kale oo la yaab leh oo idin sheegaya agaasimaha guud ee wasaaraddu wuxuu yiri 34 sanadood ee Soomaaliland jirtay wasaaradda caafimaadku sharci labada golo ka soo baxay oo ay haysay ma jirto xeer caafimaad oo aanu ku dhaqanno ama aanu isku hagno 34 sanadood wasaaraddu ma hayso buuri waa de arrin la yaab leh 34 sanadood wasaarad aan xeer lahayn marka waxaan anagu soo jeedin lahayn waxaanu soo jeedinaynaa maadaama dawaynu haynaa xeerar wixii naga gudbayeen kalaba inaguba wasaaradda caafimaadku wuxuu yiri 34 sanadood xeer labada gole ka soo gudbay oo wasaaraddu ku shaqeyso ma hayno waxa xal ah oo soo jeedinaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh xukuumadda iyo wasaaradda iyo labada goloba in xeerkii kala dhaqi lahaa ee hadday dhakhtar tahay hadduu wax sameeyey hadday dawo tahay kala hagi lahaa waa in la helaa golayaashaana looga baahan yahay wasalaam